aad baad u mahadsan tahay daawadayaal ku soo dhawaada wararkaanu idinka hayno bariga Afrika oo si toos ah idinka imanaya studio Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi. warkana waxa idin la socodsiinaysa anigoo Iglan Saalax. wararkaanu idinka hayno bariga Afrika waxa kamid ah khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay lagu qaaday jaamacad ku taala magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari oo sii kordhaya iyo madaxda dawladda dalka Kenya oo siyaabo kala duwan uga hadashay. faafahinta warkaasina waxa inoo hayay wariyaheena Cabdixakiin Siciid. ugu yaraan 147 ruux ayaa ku nafwaayay in ka badan 80 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaadhay weerar lagu qaaday jaamacad ku taala magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari dalkani Kenya. ciidamada ammaanka ee dawladda Kenya ayaa heegan buuxa la geliyay iyada oo laga cabsi qabo weerar kale oo kooxdu ay ka geysato gobolkaasi iyo guud ahaanba dalka. ilaa 4 magaalo oo ku dhow sohdimaha ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa la saaray bandow waxaana kamid ah Mandera, Tana River, Gaarisa iyo Wajeer. waxaana bandowgani ay dawladdu ku sheegtay in looga hortegayo weerar kale oo ay soo abaabulaan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo ka dhaca gudaha dalkani Kenya. madaxweynaha dawladda Kenya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa si kulul uga hadlay weerarkii lagu qaaday jaamacadda magaalada Gaarisa. madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka tacsiyeenayo intii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaasi isla markaana si kulul u cambaareeyay. xaaladda magaalada Gaarisa ayaa maanta degan inkastoo jid walba la soo dhoobay ciidamo tiro badan oo ka tirsan dawladda Kenya. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Kenya Mr. Joseph Inkizeri ayaa saqdi dhexe ee xalay ku dhawaaqay in si rasmi ah ay u soo afjareen howlgalkii ka socday jaamacadda Gaarisa isla markaana ay dileen kooxihii weerarka soo qaaday. wasiirka waxbarashada ee dalkani Kenya Professor Kimani ayaa amar ku bixiyay in guud ahaanba albaabada loo laabo jaamacadii weerarka lagu qaaday ee magaalada Gaarisa waxaana uu ku tilmaamay arrin nasiib darro ah in la bartilmaameedsado arday aan waxba galabsan oo waxbarashadooda wata. weerarkani ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dalkani Kenya tan iyo sanadkii 1998 xilligaas oo qaraxyo bambaano lagu weeraray safaaradii Mareykanka ee magaalada Nairobi. dhanka kale dawladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday magaca sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo la rumaysan yahay inuu soo abaabulay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee lagu qaaday jaamacadda Gaarisa. Maxamed Maxamuud Dulyadayn oo hore macallin uga ahaa dalkani Kenya isla markaana iminka kamid ah hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab ayaa la tuhunsan yahay inuu weerarkaasi soo abaabulay. dawladda Kenya ayaa lacag balmarina oo gaadhaysa 20 milyan oo shilinka Kenya u ballan qaaday cid kasta oo soo sheegta macluumaad suurtagal ah in la soo qabto ninkaasi. Maxamed Dulyadayn ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa inuu soo abaabulay weerarkii ay ku dhinteen in ka badan 60 ruux oo ka dhacay magaalada Mandera ee gobolkaasi Waqooyi Bari. isku soo wada duubo kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe laabay weerarada iyo dhibaatooyinka ay ka geysanayaan gudaha dalkani Kenya lamana oga talaabada ay ka booliska magaalada xeebta Bambasa oo sheegay inay wadaan baaritaano dhowr dugsi oo lagu tuhunsan yahay in lagu tababaro dhalinyarada si ay ugu biiraan ururka Al-Shabaab. booliska gobolka xeebta ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ka dhalan dhowr iskuul oo ku yaala magaalada Bambasa kuwaas oo lagu tuhunsan yahay inay ardayda lagu baro casharo ku saabsan argagixisada iyo waxyaabo la mid ah. booliska ayaa sheegay dugsiyada la tuhunsan yahay inay ka mid yihiin kuwa soo saara inta badan dhalinyarada ku biirta kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. laamaha sirdoonka ayaa sheegay inay ka warhayaan dhowr dugsi oo iskugu jira kuwa lagu barto culunta diinta Islaamka iyo maadiga oo ku yaala magaalada Bambasa. booliska ayaa sheegay inay warbixintooda ku hayaan inay jiraan arday badan oo wax ka barta dugsiyada la tuhunsan yahay oo joojiyay waxbarashadii isla markaana ku biiray kooxda Al-Shabaab. booliska ayaa sheegay in gabdhihii lagu qabtay countiga Mandera axadii la soo dhaafay ee ku sii jeeday dalka Soomaaliya si ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab ay ka soo baxeen dugsiyada la tuhunsan yahay ee ku yaala magaalada Bambasa. shil gaari oo ay ku dhinteen 7 qof oo laba Soomaali tahay ayaa ka dhacay mid kamid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda. faafahinta warkaasina waxa mar labaad inoo hayay wariyaheena Cabdixakiin Siciid.
shilkani oo ka dhacay wadada isku xidha caasimadda dalka Uganda ee Kampala iyo magaalada Inganga ee dalkaasi Uganda ayaa waxaa ku nafwaayay 7 ruux oo ay ku jiraan 2 qof oo Soomaali ah sidoo kalena shilkani baabuur waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof oo ka mid ahaa rikaabkii saarnaa baabuurka qaar ka mid ah meydadkii ku dhintay shilka gaadhiga oo la aqoonsan waayay ayaa la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Kampala si halkaasi ay ugu soo booqdaan haddii ay jiraan eheladoodii ama cid garanaysa taliyaha ciidanka wadooyinka ee caasimadda Kampala William Oberio ayaa sheegay inuu shilkani ka dhashay mid ka mid ah baabuurta isku dhacay oo xawaare xoog leh ku socday saraakiisha wadooyinka ee dalka Uganda ayaa sheegay inuu shilkani ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee muddooyinkii dambe ka dhaca dalka Uganda waa tahay daawadayaal waxa intaasi nagaga eeg wararkii aanu idinka haynay bariga Afrika oo aan la socodsiinaya anigoo ah Iglan Saalax haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee warka Kalson TV